يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا I'm Joe Sullivan. I work for King County Wastewater Treatment Division, and I work for the RainWise program. It's a really wonderful program that is jointly run by Seattle Public Utilities and King County. And we are so excited to be at this celebration of a really successful RainWise installation. It's here at Al-Noor Mosque and the Hope Academy. And we're celebrating something that's taken 2.5 years to make happen. This community center is now capturing 80% of the rainfall that falls on the roof behind me. They've built 2 rain gardens and 2 really big cisterns that capture over 1,000 gallons of water. By capturing this water in the rain gardens and letting it seep into the ground, it's not going into the sewer system and causing combined sewer overflows. It's really helping water pollution. And then the rain gardens also beautify the grounds. And in the summertime, the mosque is going to be able to turn the low flow valve that keeps the cisterns basically letting their water go slowly into the sewer system. They can close that valve and capture some rain and then use that for watering all summer. So everyone's really excited about the project. Both the mosque community and then also Environmental Coalition of South Seattle was really key in making this happen. It took about 2.5 years from when things started to today while we're celebrating it being finished. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkan waxaan ka salaamaa dhammaan muslimiinta ku nool Washington State, gaar ahaan magaalada Seattle. Waxaan maanta isugu nimid annagoo ku furayna masaajidkeenii ku yaalay West Seattle Hope Academic ama Al-Noor, qofba siduu u yaqaano, oo laga sameeyay meel ay biyaha roobka ay ku aruuraan iyo meel kale oo jardiin ah lagu sameeyay. kulay inta Somali ma aqaano cistern waa laga sameeyay iyo waxa kale oo laga sameeyay RainWise wax la dhahayo. waxaana nagu maalgeliyay City of Seattle iyo King County-ga. marka alxamdulillah wax weyn ayay noo qabteen, waayo marka hore biyaha waxay naga gali jireen basementiga masaajidka hoose, laakiin hadda alxamdulillah basementiga meeshay biyaha ku gali lahaayeen waxay soo aadaan jardiinkii loogu talagalay. qaarna waxay ku aruuraan xaamankii meesha la soo dhigay ayay galaan. faa'iidada kale ay leedahay waxay tahay xaamankaas meesha inoo yaalo biyaha inoo galaayo markii samarka beerta ayaan ku waraabsan karnaa ama waxaan ku samaysan karnaa in aan baabuurta ku dhaqano. howlo badan ayay inoo qabanayaan. marka waxyaabahaas ayay qabteen. marka waxaana ku mahadsan dadkii noo soo sameeyay meeshaan. ileen hal maalin hadda ay maanta le maahan, waxay soo socotay hawshan 2 sano ku dhawaad ah. marka ilaah baa mahad iskale. waxaa mashruuc aan hirgeliyay Environmental Coalition of South Seattle, ECOS, King County, RainWise, City of Seattle. marka ayagana way mahadsan yihiin. dadkeeni Soomaalidan inta ka qayb qaadatay way mahadsan yihiin. ilaah baa mahad iskale. marka mahad balaaran waxaan u soo jeedinayaa maamulka masaajidka Hope Academic Al-Noor. muddo ayaan ka shaqeynay. marka dhammaan inta ka qayb qaadatay ilaah ajir ha ka siiyo, way wada mahadsan yihiin. Soomaalida waxaan leeyahay hala socdaano bilicda meeshaan laga sameeyay. marka waxayna u baahan tahay beertan in markasta gacanta lagu haayo. kulay faa'iidadeedina waa la arki doonaa hadduu alla idmo insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. halkan maanta waxaan iskugu nimid masaajidka Hope oo xaflad weyn ka dhacday maanta. alxamdulillah rabbil caalamiin. qolada city-ga oo noo qabata hool aad u weyn, muslimiintana u qabatay. biyihii guriga uu soo daanhayay ama ka hoorahayeen meel xun galahayeen oo la habeeyay maanta la hagaajiyay. maalmahanba laga shaqeynayay. xafladiisina maanta la soo dhigay. abaal badanna way nagu leeyihiin run ahaantii. dawladda wax badan bay noo qabatay. lacag aan maanta karneen cadadkeeda ayay geliyeen, si fiicanna ugu hagaajiyeen. biyihii marka basementiga ku noqon lahaa ama dhulka hoos ku noqon lahaa ayaa meelo loo hagaajiyay ama si weyn oo raacaan baa loo hagaajiyay.
dad baa ka shaqeeyay community Somali ay ku jireen dad kale oo fara badan baa ku jiray alxamdulillah dawladana wax badan bay noo qabatay oon ku amaanaynaa meeshan hoob la yiraahdo waa meel aad u weyn waa laba dhismo say dadka haday garanayeen wixii inta artay intaan arkin baan u sheegaya laba dhismo oo waaweyn weeye oo dhismo uu ka kooban yahay education iyo waxbarasho dhismana uu ka kooban yahay yaani dad weynaha wixii wax loogu qaban lahaa ee kale masaajid weyn baa ku yaala basement weyn oo aroosida lagu dhigtay ayaa ku yaala Stephen Riley, I'm the interim executive director for ECOS, and we spearheaded this project with Farhia Mohammed and Osman, who are our 2 staff folks that are from Somalia. It's been a great opportunity to work directly with New Hope School and Al Noor Mosque to build and design and implement this water quality project that also is beautifying the community space here at New Hope, and it's been a great experience and a great learning experience for myself, and we're looking forward to more opportunities to partner with this group of folks here, but also just Somali community in general on education and engagement around environmental issues that are a concern to all of us. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walaalyaal anoo ku hadlaya magaca Hope Academy waxaa liidahaa Maxamed Axmed soo u jeedin Hope Academy buildinadii oo muslimiinta loo gaday oo shaqeynaya oo iskuulkii masaajidka ka qaybsanay waan oo yimid bihii oo ku da'aya roofka oo masaajidka qaarkood galaya marka qaarkood meelaha kala aadaya marka qaarkood basementiga aadaya waa soo hagaajiyay soo u jeedaan tubooyinkaas bay soo raacayaan intay basementiga gal lahaayeen meesha cooskan baan loo sameeyay ay ku baxaan aan ku beerano waan ognahay wadankan waan imaanay qof socdan uma jeedi laakiin insha Allah taala waa wax environmentigana caawinayso oo Seattle aad ugu muhiimsan wayna joogaan mas'uuliyiintii King County iyo City gabo marka fadlan nala imaado hawsha nala qabta nala faa'iideysta caawinaadiina donationkiina oo baahanahay marka insha Allah taala halaga wada qayb qaato barakallahu fiik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. The way this works is that the drain, it comes from the top of the roof, the water comes down and then comes out of this pipe, and then if it overflows there's rocks here to bring it out or go next to the nearest drain, and that barely happens. Rains, the water's gonna go from there, it's gonna go down here, it's gonna go down here and here, and it's gonna make the water, it's gonna make the flowers grow. Thank you.